waxaan halkan aanu ka galaynaa oo aanu ka bilaabaynaa faa'iidooyinka oo aakhiriya adduunkaba iyo midhaha laga helayo salaada oo lagu salinayo nabiga calayhi salaatu wasalaam. iyadana waa 31 faa'iido wey. marka ta ugu horeyso oo faa'iidada ugu horeysa waxaa weeye imtithaalu amri Illaahi subxaanahu wa tacaala. nabiga markaad ku salido amarkii ilaahay oo la ina faray ayaad fulisay. amar ilaahay qofkii fuliyana waa la garanayaa ajriga uu leeyahay iyo thawaabka ilaahay agtiisa uu ka helayo. midda labaad oo ka mida faa'iidooyinka iyo midhaha laga helayo saliga nabiga muwaafaqatahu subxaanahu fi salaati calayhi. alla ayaad waafaqday maxaa yeelay ilaahay baa nabiga ku saliyey, adna waad ku saliday, marka alli iyo adigu waad iswaafaqdeen. midda saddexaad waxaa weeye oo fawaa'idda iyo khayrka laga helayo midhaha muwaafaqatu malaa'ikatihi, malaa'igta ilaahay oo la waafaqo fiihaa salaada dhexdeeda. tan afraad waxaa weeye wuxuu qofkaasi helayaa xusuulu 10 salawaatin min allahi cala almusalli mara. qofkii ku saliyay nabiga mar keliya wuxuu helayaa 10 goor oo ilaahay salaadiisa ah ama ilaahay dambi dhaafkiisa ayuu helayaa. midda shanaad waxaa weeye annahu yurfacu 10 darajaatin, 10 darajo ayaa kor loogu dhigayaa. midda lixaadna waxaa weeye waxaa loo dhigayaa 10 xasanaad. ta toddobaad waxaa weeye waxaa laga tirtirayaa 10 oo sayi'aad oo xumaana. ta sideedaad waxaa weeye ducadiisa waa la aqbalayaa annahu yurja ijaabata ducaa'ihi idaa qaddamaha. markuu salaada nabiga uu ka hormariyo ducada soo socoto iyada ayaa kor u qaadayso waa la aqbalayaa. tan shanaad waxaa weeye ta sagaalaad waxaa weeye sabab ayaa waxay u tahay inuu nabigu kuu shafeeco qiyaamada haddaad salaadiisa iyo salligiisa aad badiso. tan tobnaad waxaa weeyaan sabab waxay u tahay in dembigaaga la dhaafo. axaadiistii baan kusoo wada marnay. tan 11aad waxaa weeye sabab waxay u noqonaysaa salligaasi wax alla wixii qofkan dhibaato u haysay in ilaahay uu ka kaafiyo. tan 12aad waxaa weeyaan iyadu inay tahay sabab addoonkaa sallinaya ee salliga nabiga badinayo inuu nabiga u dhowaado calayhi salaatu wasalaam yowma alqiyaamaha. tan 13aad waxaa weeye waxay istaagaysaa salligaas iyo salaadaas sadaqada qofkii aan haysanin oo maaragtay faqiir ah oo taquumu maqaama sadaqa lada alcusra markuusan qofka wax haysanin. midda 14aad waxaa weeye salaada oo nabiga lagu sallinayo waxay sabab u tahay xawaa'ijta iyo wax alla waxaad u baahantao dhan in ilaahay uu kuu gudo. tan 15aad waxaa weeye sabab waxay u tahay lisalaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam cala almusalli wa salaata malaa'ikatihi calayhi. nabiga ayaa kugu sallinaya muxuu ahay malaa'igtuna way kugu sallinaysaa. kan 16aad waxaa weeye oo faa'iidada salaada laga helayo iyo midhaha laga guranayo zakaatun lilmusalli wa tahaaratin lah. salaada nabiga uu ku sallinayo salliga uu nabiga ku sallinayo tahaaro iyo muxuu ahay korsiimo ayay u tahay isaga. tan 17aad waxaa weeye waxaa addoonka loogu bishaaraynayaa badinayo salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam biljannati qabla mowtihi. intuusan dhimanin adduunka isagoo jooga ayaa jannada loogu bishaaray. tan 18aad waxay sabab u tahay salligaa nabiga wuxuu sabab u yahay linnajaati min ahwaali yowma alqiyaama, maalinta qiyaamo iyo ahwaasheeda inuu kaga badbaado salliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. tan 19aadna waxaa weeye waxay sabab u tahay salaada aad nabiga ku sallinayso liraddi nabiyi sala allahu calayhi wasalam assalaata wassalaama cala almusalli waalmusallami calayh. yacna nabiga oo kaa radiyo intaad salaamtay ood intaad ku salliday ood salaamtay isagina kaa radiyey waxaa la garanayaa meeshaasi sharafta iyo qiimaha ku jirto. midda 20aad
أي كم فائدون كي يمرها صلى النبي عليه الصلاة والسلام وحي سبب أتهي لتذكر العبد ما نسيه وحي وحلمامي استغل وحاوي أثر أيا قصة أروري وحد هلمانتي هدي النبي قصة لذا عليه الصلاة والسلام وهتصوح حصوصا إيسا 21 كان كو يلباتنات أو كمرة مرها يفائدة اللي جه ليو نبي أو الغصة أنها سبب لطيب المجلس ما شاء الله فديو معه فدياس أيا وحنقريا مال آد وناكسن وألا يعود حسرة يفائدة اللي جه ليو نبي أو الغصة أنها سبب لطيب المجلس ما شاء الله فديو معه فدياس أيا وحنقريا مال آد وناكسن وألا يعود حسرة على أهله يوم القيامة تبكي ما شاف ديانا إلا إن قوممية الندامة إن كوركولا أهانن تاس أي هريان مدة صدح إيا اللباطنات أو كم من لها إيا فائدة صلاة أو النبي الوصل لنا عليه الصلاة والسلام وحاول فقرق أي كك حين إساقفك هديء مارتي نيفي عن إيو قلب وناكسن إيو أعمال وناكسن ولي مادو مدة أفر إيو لباطنات وحاويان أدونك وحي كفو جينيسا صلاة أو نبيه وكسل لنا اسم البخيل إن بخيل وشيغو إذا صلى عليه عند ذكره مركي للشيغو هدو كسل له بخيل لماذا بوكفة كان مدى أفر يلباتناد وحاوي وحو رجينا وحو يعني أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة صلاة أو نبيه وكسل لنا qofkaas oo salliga badan jidka jannada ayay salaadaas cagta u saaraysaa wa tukhti'u waxay gefsiinaysaa bitaarikiha can tariiqiha jannada jidkeedii wuu garab marayaa kan 25 oo ka mid ah midhaha iyo faa'iidooyinka laga helay salaada annaha salaadaas oo nabiga lagu sallinayo waxay fogeynaysaa مجلسك أما ما شاء الله فاديو إنه سمال قرنتي وصنقونين الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمد الله ويثنى عليه ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم محايالي انت ماشي لفريستو او إلهي نقول حسوايو وإلهي نقول مهدين وايو وإلهي نقول فعلين وايو والنبي نقول سلين وايو وعمال قرنتيوي متكسدين إلى الاتناد وحاوي waxay sabab u tahay hadal alla hadalkii la bilaabo oo ilaahay xamdigiisa lagu bilaabo in lagu khatimo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lagu saliyo isagana kan 17 waxa weeyaan waxay sabab u tahay salaada oo nabiga lagu salinayo qofka markuu jidka siraadka gudbayo nuur uu ku socdo ayaa ilaahay salaadii uu nabiga ku salin jiray ayaa uga yeelaya midka 28 waxaa weeye adoonka ku salinaya nabiga wuxuu ka baxayaa ama ka fogaanayaa qofka lafsan inuu noqdo qof naxariis badan oo jilicsan ayuu noqonayaa midka 29 waxaa weeyaan waxay sabab u tahay qofka salliga badan Allah subhanahu wa ta'ala in uu gaarsiiyo faalo qurux badan oo la jeclaanayo oo la faalaynayo oo ahlu samaa'i wal ardi oo dhan ay amaanayaan oo leeyahay ninkii hebel ahaa ee sharafta badnaa ee nabiga salligiisa badin jiray weeyaan calayhi salaatu wasalaam kan 30 waxaa weeyaan waxay sabab u tahay salaada nabiga lagu salinayo in uu barakoobo qofkaas ku salinayo amalka uu sameeyo umrigiisa noloshiisa waxa soo dhan baa ilaahay u barakaynaya kan kow iyo soddonaadna waxaa weeye waxay sabab u tahay salaada oo nabiga lagu salinayo in uu naxariista ilaahay uu gaaro qofkaas salliga badinayo tan 32 waxaa weeye waxay sabab u tahay in uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu qofkaasi nabigu jeclaan wayna kordhi jacaylkaas maalinka had iyo goor nabiga ku salinayo waxaan ognahay wuxuu noqonayaa min nabiga aad u jecel sallallahu alayhi wasallam tasaddex iyo soddonaad waxaa weeye
salaada oo nabiga lagu salinayo waxay sabab u tahay nabiga oo isna qofkii ku salinaya jeclaado nabiga ninku jeclaadana hadii aakhiriya adduunba wuu liibaanay faa'iidada ama midhaha 34aadna waxaa weeye waxay sabab u tahay salaada nabiga lagu salinayo adoonka ilaahay inuu hanuuniyo qalbigiisana uu nooleeyo oo qalbi cibaado iyo amal saalix ah lah oo wacdiga iyo waanada iyo wax walba ay galaan ayuu noqonayaa markuu salaada nabiga uu badiyo midda 35aad waxaa weeye qofka ilaahay ruuxa ku salinayo magaciisiba waxaa loo bandhigi nabiga calayhi salaatu wasalaam agtiisana waa lagu sheegi oo waxaa loo leeyahay ninkii hebel ahaa ayaa kugu saliyay oo ku salaamay nabiga magacaagii la aggeyn wax ka sharaf badan ma leh tan 36aadna waxaa weeyaan qofka cagihiisa ayaa jidka siraad ilaahay ugu adkaynaya si uu u gudbo maalinta qiyaamo waa xadiidkii Cabdiraxmaan ibn Samura oo yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam nin waxaan arkay ummadayda kamid ah oo dul taagan jidkii siraad oo saa u qarqarayo oo waxa uu yimid oo badbaadiye marka salaadii anigu ugu salinayay ayaa badbaadisay oo lugihiisii bay sugtay markaasuu muxuu ahaayay iyo lugihiis isku taagayo sidaasuu kaga badbaadiyay jahannamada iyo siraadkii oo ku dhici lahaa midda 37aad ee kamida faa'iidada iyo midhaha uu ka helayo qofka muslimka ah waxaa weeyaan waa isaga oo gutay wax yarkii ugu sii yar oo xaqii nabiga uu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam ilaahayna ku mahadiyey nicmada oo nabiga uu ilaahay iyo islaamnimada iyo qur'aanka iyo diinta uu noogu nicmeeyey ayaad abaalgud yar ka bixinaysaa markaad nabiga ku salido tan 38aadna waxaa weeyaan waxay kulmisay marka nabiga lagu salinayo ilaahay oo la xusayo alla oo la mahadinayo isaga oo la kiranayo nicmada uu adoonkiisa ugu nicmeeyay markii uu nabi maxamed soo diray marka saliga nabiga lagu saliyo waxay xambaarsan tahay xuska ilaahay mahadintiisa nicmadii ilaahay oo la ictiraafo oo uu noo nicmeeyo markuu nabi maxamed noo soo diray ka ugu dambeeyo waxaa weeyaan oo 39aad nabiga oo lagu saliyo calayhi salaatu wasalaam waxaa weeyaan waa duco ilaahayna wuxuuna amray in aan nabiga u ducayno sallallahu alayhi wasallam isagana saasuna amray markii uu yiri an nas'ala lahu alwasira inaan wasiilo aan u weydiino taas oo jannada meesha ugu sareysa ah ilaahay waxaan weydiinaynaa in uu nagu ilhaamiyo saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam dambigana uu dhaafo aqulu qawli hada wa astaghfirullah wa assalamu alaykum wa rahmatullah waxaa ku soo duubay kuna soo diyaariyey studio Abu Xaniifa wuxuu ku yaalaa Soomaaliya Muqdisho gaar ahaan degmada Hodan dhanka waqooyi wuxuu ka xigaa masjidka Sheekh Cali Suufi cajaladahan iyo kuwa la mid ahba kala soo xiriir studio Abu Xaniifa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على